odayaasha iyo cuqaasha labeenta u ah gobolka Gabiley oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gabiley ayaa waxa ay baaq dheer u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi baaqan ay u direen madaxweynaha ayaa ku aadanaa inay xukuumadda Soomaaliland faraha kala baxdo golaha deegaanka degmada Gabiley oo muddooyinkii u dambeeyay ay sheegeen odayaashani in ay faragelin baas ku haysay madaxtooyada Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi odayaashani ayaa waxa ay carabka ku adkeeyeen in golaha deegaanka degmada Gabiley xor looga dhigo cid ay u dooranayaan maayirka magaalada Gabiley isla markaana ay codkooga siiyaan oo ay gacanta u taagaan ciddii ay u gartaan inuu noqdo duqa degmada Gabiley waxaana yiraahdeen Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne si weyn baan ku salaaminaa waan ku hambalyeynaa adigoo madaxweyne aan dooranaya doorashada aad qabatay ee labada gole ee isku sidkan sida ay u dhacday iyo sida aad ugu dhiiratay sidii ay dadweynuhu codeeyeen inta waan ku hambalyeynaa tan labaad waxaan leenahay madaxweyne oo ka codsanayna anagu oo reer Gabiley golaha deegaanka ee la doortay ee 13 ah hal laga daayay fargelinta madaxweyne si weyn baan kaaga codsanaynaa waayo waxa weey dadweynaha iyagii uu kacsan yahay haddii aad fargelinta ku samaysaana waxa ka dhacay cidda ku geysatay baa ka mas'uula annagu dadka waanu hor joognaa waanu dejinay waxba ma jiraan baanu nidhi aad iyo aad bay u degeen haddii la soo dhex gala dadka oo la arko iyadoo dhaqaaq kala jiro de wixii ka yimaada kulliga waxa naga dhaafsan waxaanu leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo qarannimada ha la ilaaliyo codka shacbiga ha la ilaaliyo sida wax loo doortay ha la ilaaliyo madaxweyne adiga wadanka marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sida fiican ee xilkaska oo doorashada u qabtay labadii gole isku sidkana oo qabtay ayaan ku hambalyeynaa oo aad ugu hambalyeynaa waxa jirta oo madaxweynaha u sheegaynaa inay jirto faragelin badan oo wasiiradiisa ka imanaysa Gabiley marka waxaan ka codsanaynaa inamada 13 soo baxay waa 13 nin oo reer Soomaaliland ah oo madaxweynaha hortiisa iyo Soomaaliland ba isku mid ah iyaga xaq u leh cid ay dooranayaan waxa leeyahay hal loo daayo dhalinyarta yaa lagu faragelin ciddii iyagoo ay arkaan dalka inay wax qabanayso ee degmada wax qabanayso iyaga loo daayo ummadda reer Soomaaliland isbedel baa u baahan tahay sida Hargeysa ka dhacday in maanta hal Gabiley ay ka dhacdo ayaa u baahan tahay marka waxa leeyahay madaxweynaha shacbiga loo daayo xildhibaanada soo baxay faragelinta laga daayo madaxweynuhu amro ayaanu ka rajaynaynaa waana ku rajo weynahay inuu taayeeli doono waxaanu u qabanay hambaliyada koobaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee qabtay doorasho xaq iyo xalaala oo ay deere hirdin waxaan halkaa gadaal ka raacinayaa 13 inan ee ka soo baxay Gabiley waynama mutacalimiina mid loo dhaafa lahayn garasho dheer leh intoodii baa hadhay iyaga istooranaya waxaan codsanaynaa in loo daayo doorashadooda inay si xor iyo xalaal isku doortaan maayirka iyo maayirka xigeenka waana hambaliyo waxaan leeyahay madaxweyne
gobolkan gabiley waa gobol aad iyo aad kuu taabacsan aadna kuu hambalyeynaya haddaadnu cuqaasha nahayna waxaanu kula jecel nahay mar kasta magaca sare inaad noqoto waxaanu maanta leenahay waa in isbeddelka la tixgeliyo isbeddelka aad samaysay adigana sharaf bay kuu tahay ummaddana sharaf bay u tahay laakiin haddii isbeddelka la tixgeli waayo waxay noqonaysaa dhaawac adiga ku yaal qaranka ku yaal ummadda ku yaalla gobolkan gabiley wuxuu tirsanayaa oo kale in maayarkii hore joogay loo xidhay 5 inanoo xildhibaanaa oo jeel la geeyey soomaad garan maantana waxyaabaha sisafayaalo badan oo soo baxbaxayaa jira waxay noqonaysaa haddii mar dambe la yidhaha waa la afduubayaa inaan gobolku doorasho dambaba gelinba ama tu madaxweyne ha noqoto ama tu deegaan ha noqoto mid dambe inaan la gelin taana u malayn maayo adiga xaggaaga inay ka socotay meelahan yar laakiin dhexda ee soke ayaa kolley wax ka soo yar ayaa wax sidina yarar baa meelahan naga soo yaa ka yimaada annaga oo beeshii ansaareed ah madaxweyne waxaan kuugu mahadnaqaynaa doorashooyinkii labada gole sidii sharafta lahayd eed u maamushay eed xorriyadda u siisay qodob walba waxaanu kaa codsanaynaa sida aad hargeysaba ka yeeshay yaa xornimadooda in aad u dayso oonad cidnaba ku faragelinin inaad annagana dhallinyaradeedii reer gabiley dee waa dadkaagii uun xisbi kastaa ka soo baxo waa dadkaagii musuqanta garanaysaa yaa in aad xorriyaddooda u dayso oo adiga iyo wasiiradaadu faragelin midnaba aad lagu samayn taasina waanu kaa codsanaynaa mudane madaxweyne muuse biixi cabdi taas aadna aad baan ku salaamayaa raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi xildiid ayaa salaamaya ta labaad doorashadii waanu kugu ammaanaynaa aad qabatay doorasho fiican bay ahayd qashqash ma lahayn xumaani kama dhicin wanaag baa ka dhacay maanta haddaba doorashadii way dhacday ninba calafkii buu qaaday xusbiyana waa ahaydeen ninba xusbi buu dee tegey wuxuu ka helaba nin dhacayadii soo baxayba wixii soo baxay ee ahaa gobolka gabiley ee gobolka cagaarana sidii ay ku soo baxeen waa inay xorriyaddooda ku haystaan sidaana waanu kaa codsanaynaa waxaananu ku leenahay madaxweyne raaga noqo madaxweyne dalka ku raago oo cimrigiisu ku raaga noqo sidaasaanu kugu taanadaynaynaa kuguna soo ducaynaynaa haddii aanu ansaartii nahay laakiin inta aanu kaa codsannay noo yeel waxa aan baaq ugu diraynaa ama fariin adag ugu diraynaa madaxweynaha in ay jirto faragelin qaawan oo lagu hayo gabiley xildhibaanadii soo baxay markaa muuse waxaa u sheegaynaa madaxweynaha in faragelintaa xukuumaddu ay nagu hayso oo naga qabto isagaa mas-uulkii ahaa madaxweynaha oo loo daayo xildhibaanadaa soo baxay codkooda xorta ah meesha ay la marayaan taas ayaanu fariin cad madaxweynaha u diraynaa annagoo ku celinaynaa madaxweyne xukuumaddaada faragelinta qaawan nagu haysaa naga dah daanun anay caaqiladii ka soo jeeday gobolka cagaaran ee gabiley dadku sidaa ay foodkooga iyo magacooga ay wax ugu doorteen waa inay u doortaan cidda ay doonayaanna gudahooga u madax bannaanaadan sidii xoolaha in la iibsado ma aha waan salaamayaa madaxweynaha karaamada iyo sharafta uu ka qaaday iyo wanaagga waddanka hor somalilan o dhan uu ka qaaday dhammaan qurba joogga adduunyada meel kastoo ay joogaan anigoo sultaankii guuda ee qurba joogga ah waxaan waxba lama hadayno si uu wanaag iyo nabad mana qaadan karno faragelin qaawan iyo lacag la qaybiyo iyo hodhoollo laysku soo xidho ma rabno war dadka yaan laga qaadin sharaftiiyo karaamada innagana ceeb haynoo soo jiidina si kastaba ahaatee waxaa maalmihii u dambaysay magaalada gabileysa soo tarayey hirdanka loogu jiro loolanka kursiga maayarnimo ee magaalada gabiley iyada oo ayse soo tarayso cabashooyinka laga cabanayo xukuumadda dhexe ee somalilan
ee lagu sheegayo in ay faragelin ku hayso xubnaha golaha deegaanka degmada Gabiley isla markaasina lagu khasbayo in ay doortaan xubin ka mid ah golaha. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Duur Kurbeynta SBC gobolka Gabiley.